بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا سومالي دا كوتشرا جروبدا سومالي كريبتو كرنسي وإن سلام الدمان ما أنتم مالين إيد ولكن أحمد وياه وإن سلامي وحنا كلها عيد مبارك. فيديو جا وحنا نسميه سبب نسميه وحكم وحويه إن دتك اللي جال بحيو قابك exchange كلا يرادو باينانس لو فهمه سيدا ماركتي security system كلها بين لها سيدا موبايل كلوجو حولي لها iyo waxyaalaha fara badan ee dadku maaragtay fahansanin ilaa iminka insha Allah ayaan jeclaa inaan videogaasi complete from A to Z min al-alif ila al-ya inaan idinku dhameeyo marka insha Allah idinkuna videoga si fiican u daawada aan inaga ilaawina insha Allah subscribe-ka channel-ka ka faa'iideysta like-gana saara asxaabtana u gudbiya si looga faa'iideysto insha Allah ta'ala waan salaamay ku soo dhawaada videoga. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله وإن سلام الدمان waxaan jeclahay maanta inaan walaalihiin ila soo xiriiray yiri waxaan rabnaa inaan fahanno exchange-ka Binance sharaxaad maaragtay qaabka loo galo qaabka looga faa'iideysto qaabka la isaga diiwaan geliyo waxyaalahaas oo dhan insha Allah maanta inaan ka dadka ka jaalbixiyaan jeclaan lahaa intaan casharkan bilaabin waxa weeye casharkani ma aha forex waxaana taqaaniin forex leeyahay ma aha shaqo kuma laha إنه فوركس ما بقاني ولينا مقلين معها مالتي ليفل ماركتينج معها نتورك ماركتينج معها ولا ليه هيدات كين كوميشن مالوكسينيا معها بهال كان هو واحد اللي يرادو كريبتو كارنسي وواحد عصر كان صوب حي عصب أو ماركتي العقد ديجيتال أو ماركتي لا ذا سوقي وين بيلا ذا أو دوين هذا ما كوش قيستا أو بليونز بليونز بالغ بحياة مركز تبع مركا ولا لهن دتك الدنيني إني فهمان باينانس بإذن الله تعالى 10 كان سفي عنو داوضة from A to Z من الألف إلى الياء سفي عنو داوضة إن شاء الله وإذن شرح يا قابك اللوغة لو قابك اللوغة فإذستو وحوي مهم وحا أمانت إنا تفهمتان قابك لسجد ديوان قليو ماركت السيكوريتي هان سيدا قابك اللوغة ليو باسبوركا قابك كيوي سيغا اللوغة حلو قابك ماركتي موبيل كاقاد وحري كرتيد إن شاء الله وحا صورنا عاو حانو استعمالنا وح عصب إيميل عصب إيوه تليفون لنبرو عصب waxaas oo dhan caawinu sameynaa insha Allah ta'ala marka la socda طيب waxaanu tagnaa coin market ka bilaabnaa Binance doo aragtaan crypto wata 2439 bay maraysaa oo coin oo kala duwan adduunka marketyadu waa korreen 19,852 market baa soo dhacay oo cusub market capkiisi waka intaasoo bilyan baa ku jirta waxaa jira exchange-yadu waa ka Binance iyo Binance DEX iyo Binance Jersey iyo Binance Uganda iska daya saddexda ka ayaynu gelinaa kaasa ugu muhiimsan iminka aynu ka shaqeynaa horta Binance yaa sameeyay marka hore yaa iska leh Binance ninka iska leh waa nin Chinese ninka waxaa la yiraahdaa anu af Chinese kama qaan sida loo akhriyo ma qaan laakiin waxaa ka muuqata halka Changbing Zhao oo waxa loo yaqaanaa CZ halka waxay yiraahdaan waxa ku tilmaameen website kan la yiraahdo Forbes عالمي waxay ku tilmaameen ama majalladan oo ka bilaabay faqiir waxa ma oo haysan adana waa milyaneer weeye from zero to crypto billionaire in under a year yani sanad gudaheed ninkaasu meel aan caadi ahayn buu gaari meet the founder of Binance marka hadaad gashaan Google-ka aad ka baadhaan magaciisa waxaad ka helaysaan information fara badan waxaa ka mid ah informationada Forbes lafteeda ka akhriyay wuxuu ku leeyahay maalintii waxaa ka soo baxa exchange-ka Binance dad badan ka shaqeeya customer service beereedahay dad baa ka shaqeeya meesha 500 milyan oo dollar daily ay ka timaadaa waxa weeye taasuna waa trading laga sameeyo waa waxaan caadi ahayn weeye طيب maxaa muhiim ah iminka marka ugu horeysa marka aad weligaa soo gaarsid horena waa u sheegay exchange-yadan waaweyn caalamiga ah ee laga shaqeystay meel kasta tan oo kale mesela Binance waxaad u baahan tahay link aad ka soo gashid waa muhiim weeye taasu لأنه لينك جاس قف هرق وجلي أو كل شقية أو جناحي كسمية أو لعب كسوق شو أو إسكدي برا إسكدي وانجلي أكاو كيسا ومهم وي إن كحد ناتد سيد معناها ميل صح أو كسوق شيء تسمى مهم ويا مركا وحوية الكسر كبرها بيننا مثلا قف بقول صدري لينك يوكا binance.com وكل صدري sometimes مركا قالوا ميركل وقطورة لكن ولي جو حكى قلا Binance كسحة على قلا مركا وحاس صح جرنتي أقف ولي جا قف كحدنو وكاس وان كل فنيا
exchange waa kaa markaad ku dhufatid wuxuu kugu wareejinayaa page kale kusoo baxaya oo new ah. page kan waxa ugu horeeya sameynaysa waa maxay? horta waa inaad na eegtaa wadamada qaarkood xoogaa moogtahay qashqashaad baa ka yari jirta dhibaatooyin, markaa sometimes waxaa dhici karta inay wadamada qaarkood ka shaqeyn. waxaad gelaysaa register. okay, email baan gelinayaa cusub, password cusub baan sameysanayaa. passwordkii waan sameeyey. okay, I'm over 18 baan ahay. create accountkii waan sameeyey. wuxuu kaa dalbanayaa baasha maartay waad qabanaysaa, soo xariiqaysaa, saas soo qaadaysaa, guudkaad gelinaysaa. marka khalaas my save password natna baan koranayaa. marka waxaad tegaysaa emailkaaga verification, isla markiiba wuxuu kusoo dirayaa email. pointkaa dad badan baa ku qalda. markaad accountka furtid straight waxaad tagtaa emailkaaga gal. okay, marka lagu soo diro okay, emailkaagii waad gashay. markaad gashid link buu kuu soo dirayaa. marka kuu soo diro waxaad gelaysaa register baad gashay. waxaad gelaysaa emailkaaga. email cusub baan sameeyey iminka. okay, password baad sameysanaysaa. okay, I am over 18 baad oranaysaa. waad ku dhufanaysaa continue, create account. markaad ku dhufatid continue ama create account waxaa kusoo baxaya bahalkan calaamada maaragtaa saddexda calaamada greenka ah baad socodsiinaysaa. halkaas baad gelinaysaa meesha ku beegaysaa. khalaas oo kusoo baxay. waxaad gelaysaa go to email to verify. dadka badankood waxyaalaha ay isku qaldaan waxaa ka mid ah marka accountkii ay furaan waxaa laga rabaa in ay email ka tagaan markiiba si ay u sameeyaan verification. marka emailku geynayaa. markuu emailka igeeyo waa inaan sameeyaa verify. okay, confirm your registration ku dhuftay. khalaas verify email. accountkani waa account jira oo shaqeynaya weeye. congratulations, your Binance account has been activated, please log in to start trading. khalaas accountkii waan furay. taas waa khadwadda ugu horeysa muhiimka ah. login baan sameynayaa. accountkii baan gelayaa. okay, passwordkii aan samaystaan ku dhufanayaa. login baan iri waa ku dhuftay. hadda accountku geenayaa. okay, start quiz. su-aaluu ku weydiinayaa, ka jawaab, ka bood, remind me later qor. aan ku dhufo. khalaas accountkaaga wakaa. it's a new account weeye. SMS authentication. okay, stepkan iminka aynu sameynayna waa step important ah. marka aad rabtid inaad ku xidhid accountkaaga mobilkaaga baad ku xidhaysaa. markasta istiraadid gal security. haddii aad lacag gashatay ama matalan ganacsi ka samaysay waxaa fiican weliga inaad wax garantiya ku shaqaysid. marka mobilkaaga aad ku xidhaysaa waa wax security ah. kadib waxaanu sameynaynaa mobile security. okay, waxa weeye wuxuu kaa dalbanayaa laba wax, Google authentication ama SMS authentication. labadaa mid maaragtay ku habayso accountkaaga. anigu waxaan jeclahay SMS, mobilkaan jeclahay. marka waa ku dhufanayaa understand. okay, lambarkii buu kaa dalbaday. kan waa ka UK buu siiyey lambarkii waa qorayaa. waxaan oranayaa send SMS. ii soo dir baan ku iri. marka mobilkaan ka eegaya iminka uu soo diray. dalka dad ka arki kartaan Binance iyo waqtiga uu soo diray. kamarada dhaweeyo waqtiga uu soo diray. waa aragtaan waqtiga timeka. marka wuxuu ku siinayaa ilaa 60 second. waa inaan degdeg u geliya lambarka 83877 oo inaan ka bilaabo bilowga. 24 second baa hadhay buu yiri. 083877 enable. okay baan iri. khalaas hadda waxaan ku xidhay mobilkaygaan ku xidhay. anytime aad istiraadid gal accountkaaga khasab mobilkaaga waa inuu usoo dira text. taasuna waa security fiican. Binance wuxuu ku fiican yahay securitygiisu. مثلا waxaad tiraahdaa xaafad baa tagtay waxaad isticmaashay computer saaxiibka ah. haddaad israad computerkiisa ka gal Binance number 1 wuxuu ku weydiinayaa mobilkaaga inaad ka gashid. ka kale talabaad wuxuu ku weydiinayaa email inaad maaragtay emailkaagu kuu soo diraya inaad emailkaaga yani waa saddex security iyo IP number. computerka aad ku shaqeynaysid waa inuu noqdaa kii aad hore u taqaanay ama any computer ha noqdo, laakiin waa inaad koodka ka soo qaada emailkaaga lagu soo dirayaa.
waa inaad emailkaaga gashaa oo soo dirtaa oo aad tiraahdaa computerka raalli baan ka ahay. ta kale waa inaad mobilkaaga haysataa. Marka securitygiisu caadi maaha, waa security aad u adag weeye. dhowr wax baad samayn kartaa meesha tan. Okay, mobile setup waa sameynay. maxaa kaloo hadhay? waxaad gelaysaa laakiin account cusub waa kan. waxaad gelaysaa hadaba ka unverified buu ku qoray. macnaha si fiican macnaha exchange-ka waad ku jirtaa laakiin KYC-gaaga weli lama dhamayn. macnaha passportkaaga iyo waxyaalihii kale kaa maqan. Unverified. Okay, waan galay. markaad iminka halkan gashid security waa 3 nooc. level 1, level 2, level 3. level 3 badanka looma baahna. level 1 waa okay laakiin level 2 ga muhiim ah laano level 2 ga waa inaad passport geliso weeye. marka anigu hadda level 2 waan maraya. level 3 uma baahnid. waxay ku xidhan tahay bitcoin-ka aad wareejin kartid maalin kasta aad matalan ka saari kartid ama cid u diraysid. waxa weeye level 2 waa very good. inta badan uma baahnid. level 3 waxa u baahan dadka bitcoinada dee 200 bitcoin naqliya taasuna waa wax moogtay lagaan caadi ah weeye. marka waxaad gelaysaa halkan increase your account security identity verification verify baan qorayaa baan click labo ku siinayaa enterprise mise personal. waxaad qoraysaa personal. step 1 magaca ku siinayaa magacaad ku qoraysaa marka hore. middle name baad qoraysaa. taariikhda dhalashada. okay, begin verification baan qoray. start. please have your ID. طيب iminka waxaa ahayd daba ID-ga wuxuu kaa dalbanayaa passportkaaga markaad meesha gaadhid. start baan qoray. identity card ama passport ama driving license. haddaan qoro passport wuxuu kaa qaadanayaa ama wuxuu ku oranayaa take photo ama upload file. filekaad upload garaysay. fileku waa inaad passportkaaga maaragtay uu kuu jiraa computerkaaga si fiican u sawir. format fiican ku samee. marka choose file hadhowta adaa dooranaya. hadhowta soo geli. hadhowna save garee. hadda passportkii diyaariya maaha aniga laakiin waxaan samayn karaa maadaama aad soo gaadhay qaabka halka aad soo gaadhay bes la soco inta passportkaaga upload ku samee save garee. waxa uu ku weydiiyo u jawaab ilaa uu ku yiraahdo wuxuu waqti buu ku siinaya adigu maalin gudaheed. aniga wuxuu ku dhameeyay maalin barkeed baan marinaya dhowr saacadood baa ahayd maalin barkeed. marka waqti buu ku siinayaa aan aad u dheerayn maalin gudaheed baa dhici karta. kadib wuxuu ku siinayaa security level 2. level 2 buu ku siinayaa. level 2 dad gaadid khalas kale uma baahnid ba. level 2 waxa kale uma baahnid. intaas u baahantay kaliya. ما شاء الله. طيب iminka aynu sameeyno practice baynu sameynaa. website-kii waad gashay. linkigii lagu soo diray. linkiga طبعا si aad rabtid inaad iska diiwaangelisid videogan hoostiisa ayaan soo dhigay linkiga aan idiin sheegay iminka oo garantiyaad ka geli kartid insha allah. markaad ku dhufatid hadda waxaanu sameynaynaa tababar. emailkii aan sameynay baan gelinaa. passwordkina waan gelinaynaa. waa inuu password adag oo noqdo weeye. login baan sameeyey. waad fahanteen iminka baashaasaynu soo jiidaynaa. ku beeg khadka ku beeg. wuxuu yidhi send. waka lambarkii aan isku save garanay waka send baan kor ii soo dir. hadda telefoonkaan furayaa. wuu ii soo diray lambarkii 9458845. wuxuu ku siinayaa daqiiqad gudaheed. okay, start quiz ma rabno. remind me later. adigu haddaad rabtid marka aad gelisid exchange-ka aad iska diiwaangelinaysid waad geli kartaa start quiz. wax dhibaato maaha. marka su-aalu ku weydiinaya caadi uga jawaab. anigu waxaan ku qoray remind me later. waa inagaa soo galay account-ka iminka. halkan qofka matalan bitcoin haysta ama suuqa sarifka galay wax kasoo iibsaday meesha halkan markaad rabtid inaad qarisid waxa aad haysatid baad saa oranaysaa. wata ishii waan ka qaaday ka ishii waan xiray macnaha isha qari buu kuleeyahay shayga xidh. ishii waan furay ka hadda dabcan account cusub xukuma jiraan weeye. waa aragtaan hadda beginners guide halka ka akhri kartaa information badan buu ku siinayaa. sharaxaad yar oo account-kan ka hadlana iminka gudihiisa ah. wallet marka aad مثلا soo gashatid cryptocurrency bitcoin ama qolaan nooc bay ka shaqeeyaan. halkaas ku dhufanaysaa balance wuxuu ku tusayaa waxa aad haysatid.
طبعا halkan waxba ma jiraan imika waa new maaragta waa new waxa kuma jiraan meesha coinanka Binance ay ku shaqeyso way fara badan yihiin laakiin kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Bitcoin BNB waa coin iyagu iska leeyihiin exchange-ka iskale waa coin gaar ah iyaga coin-ka iyaga iskale BNB baa la yiraahdaa Ethereum waa coin-ka labaad adduunka ka hooseeya Bitcoin kuwa yar baa jiro yana soo baxay bariyahan Litecoin waa muhiim Tron Ripple Bitcoin Cash ABC EOS waxaa jira waxa la yiraahdo stable money lacago iyagoo dollar ah macnaha dollar digital ah sida مثلا USDT oo kale ama BAX oo kale ama USDC oo kale ama TUSD kuwaas waa lacago aad u kala wareejsan kartid coinanka مثلا example baan siinaya suuq la yiraahdo USD waa dollar markaad Bitcoin haysatid waxaad oranaysaa sell مثلا waa iska iibinaysaa wuxuu ku siinayaa dollar Ethereum baad iibisay wuxuu ku siinayaa USDT dollar waxaa la dhahaa hawaka مثلا Litecoin baad iibisay waxaad ku iibsanaysaa USDT u bedelaysaa waa suuq kala jireysna la yiraahdo Ethereum BNB waxaad u bedelanaysaa Ethereum hadaa rabtid link ama any coin halkan maaragteen aad ka aragtaan waxaad u bedelan kartaa Ethereum waa badan yihiin coinanku boqolaal coin baa ku jira exchange-ka la yiraahdo Binance suuqa kale waxaa la yiraahdaa suuqa Bitcoin-ka coinan kale waxaad u bedelan kartaa Bitcoin waa aragtaan zero football intuu sayaa exchange kad galaysaa exchange basic ha galin advance waxa yara xogaa moqta wuxuu baahan yahay waa yara culus training badan buu baahan yahay laakiin weligaa basic baad galaysaa haddaad gashid basic suuq qarabtid oranaysa waxaan doonayaa inaan Bitcoin baan haystaa inaan u bedesho USDT waxaad taabanaysaa USDT coin-ka aad u baahan tahay مثلا waxaad tiraahdaa Ethereum wuxuu ku tusayaa Ethereum suuqa stable coin-ka ku ata BAX ama TUSDT ama USDC ama USDT ina waxaan doonayaa USDT waan taabtay Ethereum ma theta kaas theta weeye igar alaada Ethereum USDT sasa wuxuu ku tusayaa lacagta Ethereum ku maanta wuxuu marayaa tan waa pound weeye dollar baan u bedelaynaa dollarka aad la tacaamula okay wuxuu marayaa maanta Ethereum ku waqtigan xaaliga 211.7 oo dollar waa xabadii kaliya Ethereum-ka subhanallah beridaas wuxuu mari jiray xabadii kaliya waxay $10 bahayd ama $5 bahayd oo berigi hore weey hadda wuxuu marayaa 211 waka marka rabtid inaad iibisid mesela Ethereum baad haysataa ama buy baad oranaysaa ama sell baad oranaysaa ama iga iibi ama aan iibsado haddaa haysatid USDT waxaad oranaysaa buy haddaa haysatid Ethereum waxaad oranaysaa sell suuq kale tagaynaa مثلا suuqa Bitcoin-ka Bitcoin-ka waka Ethereum to Bitcoin waa soo bedeli kartaa hadalka waxba kuma hayno haddaan taabano aan taabanay isbedelayaa hadda suuqi wuxuu isu bedelay Ethereum to Bitcoin arta BTC iyo Ethereum to BTC wad kala bedelan kartaa markaad wax ku jiraan meesha qaybtan suuqan madama ku noqono waa kuwa coinankii waa live baaragta soo dhaqaaqayo live way maragta lambarada ay eeg waa live wax dhaqaaqayo weeye هذا بيتكوين وقتين حاليا ساعدنا إنه هذا إنه هذا إنه ماركت USDT قال له وقتين حاليا هو مريا كوب يتمن كن يأفر بقول مريا بيتكوين كاسبري أحداث وحوها مركز صوب حيل أرسل كروحوها هل سنتي بوها كبا يربع لبا سنتي سدح سنتي لا وكعي لو أفر بقول قاري شم بقول قاري دد باكسو قاري سوق الشم بقول وأنت صاحبك يبسدي دد با حبت كلي كيبسي سوق الشم كنا دد با لح كن حبت كلي imagine حبت دي كلي أكو يتمن كن فور البيتكوين كرد عادي ما أدون كمل كستم وقتها meel kasta hadda waxa laga iibsadaa adduunka hadda Ingiriiska oo kale boqolaal kumayaal dukaan wax laga iibsadaa Bitcoin Norway ma andhowto tigidha lagu raaciyay subhanallah tigidho ayaa lagu raaciyay Bitcoin gaariya lagu iibsaday waa wax real ah waa lacag imka socota oo adduunyada oo dhan baad ictiraafi doona dhawaan yani dhawaan ma oran kar laakiin waa ictiraafeen ba intaas oo umudood baa ictiraaftay keligii maaha Ethereum oo kale hadda tagtid mesela Google waxaan ku siinayaa example yar hadda Google tagtid إن العقد رون أكتر حكوا جالس هذا
haddaad tirahdo waxaan haystaa 0.5 bitcoin 0.5 waa half 12,000 BTC to USD eeg hore ku saaraya $5,000 weye bal waxaad u bedeshaa kuwa carabta u bedel dirham u bedelba waxaan wax ciyaar maaha wax adduunka hadda caalamku dhan qabsaday waka wuxuu ku leeyahay 0.5 bitcoin-ka hadda waa jajabka yar 0.5 waxba ahayn wuxuu ku leeyahay waa 20,000 waa 21,000 oo dirham United Arab Emirates dirham bal waxaad u bedeshaa shilin Soomaali yani waa iskaga dhiganaa iskaga qoranaa wax moogta dareela maaha laakiin shilin Soomaali iska badhe Soomaali shilling sidee loo qori jiray shilling Soomaali shilling waka cajiib wuxuu ku leeyahay 0.5 bitcoin waxay la qiimo tahay 3.3 bilyan miya sanduuq ku qaadaysa lacagtaas waad aragtaa ka Sacuudiga hadda u bedeshid to riyal baan qoray to Saudi riyal waa 21,300 marka waxaan xaqiiqatan wax maaragtay wax sahal ma aha wax adduunyadu hadda aad iyo aad uga shaqeyso exchange-yadu waa farbadan yihiin طبعا caawa exchange-ka Binance baan sharaxnay laakiin exchange-yadu farbadan yihiin waxaa jira boqolaal exchange baa jira yani boqolaal ma 19,000 oo exchange baa jira exchange-yadu way ka badan yihiin coinanka horena waa u sheegnay مثلا waxaad gelaysaa bitcoin baad gashay inta market ay ku jirto daawo market baan galay marketyada ay ku jirto waa aragtaan bismillah waxaas dhan waa marketyo waxaas dhan waa aragtaan halka bilaaba waa market waa suuq waxaan dhawaa lacag waa suuq wey Binance waxaa laga yaabaa inay ku jirto 12,000 oo suuq aragtaan marka insha Allah taala inta inaynu caawa fahanay qaabka loo faray waa account waa garanay qaabka linkiga lagu soo galo waa garanay marka insha Allah videoga hoostiisa waxaan soo dhigay casharo hore aan ka sameeyay cryptocurrency waad ka qayb gali kartaan waad soo gali kartaan qofkii raba xitaa Coinbase meeshan mugtay exchange fiican weeye oo laga iibsado coinanka waxaan u jeedaa bitcoinada iyo ethereum-ka halkaas laga iibsada Coinbase-ka u badan tahay dhinaca Ingiriiska aad waxaan u tacaamulaa Coinbase marka linkidii oo dhan kuwii asliga ahaa macnaha anigu aan ku shaqeysan jiray linkiga hoostiisa ku soo qoray Binance hadday noqoto any link hadday noqoto KuCoin hadday noqoto Coinbase kullo insha Allah waxaad ka helaysaan videogan hoostiisa ka helaysaan insha Allah taala marka ilaahay waxaan ka rajeeyay khayr inaynu ka faa'iideysanay casharkan muhiimka ah insha Allah haddii de wax cusub jiraan waa idin soo dirayaa video cusubna soo wada oo crypto dadka looga faa'iideeyo insha Allah taala subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk